shirka degmooyinka oo toddobaadkii mar la qabto kaasoo looga hadlo dardargelinta waxyaabihii u qabsoomay maamul gobolka Banaadir iyo wixii aan qabsoominba waxaa shir gudoominayay kulankaani gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada maamul gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaasha dowladda hoose xamar shirka qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa oo ugu muhiimsanaa sidii loo dardargelin lahaa barnaamijka Hisalqaan oo qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iminka ka socda iyo sidoo kale arrimaha amniga oo maamul gobolka Banaadir tilmaamay in uu xoog saari doono isla markaana ay socdaan qorshooyin kala duwan oo lagu xoojinayo amniga caasimadda taas oo iska kaashanayaan ciidamada amniga maamulada degmooyinka iyo shacabka caasimadda ku nool sidoo kale waxaa barnaamijka aad loo falanqeeyay ciyaarihii kala duwan ee ka socday degmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan ciyaartii habeen ka hor ka dhacday magaalada Muqdisho taas oo ay isugu yimaadeen degmooyinka Shibis iyo Waaberi waxaana loo hambaliyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale degmooyinka ciyaarahaasi ka qayb galay guud ahaan maamul gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka ayaa isku dardaarmay in la dardargeliyo barnaamijyada kala duwan ee lagu horumarinayo caasimadda si caasimadda ay ula mid noqoto ama ay ula tartanto caasimadaha dhigeeda ah kulanka markuu soo ilaaday waxaa si guud warbaahintu la hadlay afhayeenka maamul gobolka Banaadir isagoo ka warbixiyay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay sidoo kale waxaa loogu hadlay nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho iyadoona la dardargelinayo barnaamijka Isxilqaan uu hore u iclaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana maamulka gobolka Banaadir uu iclaamiyay ama ballan qaaday in degmooyinka Howlwadaag iyo Hodan ee dhawaan qaraxada ay ka dhaceen in lagu dhisi doono barnaamij Isxilqaan sidoo kale maalinta berita ahna ay maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ay isla iclaamin doonaan barnaamij Isxilqaan ah oo ujeedkiisu yahay waxbarashada kaasoo loogu magac daray bar ama baro sidoo kale maamulka gobolka Banaadir wuxuu dhawaan bilaabayaa sidii ay dib u dhis iyo waliba nadaafad iyo dib u dhisba loogu sameyn lahaa xarunta Stadium Muqdisho oo ah garoon runtii ay u baahan yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada isboortiga markaas qayb weyn ka qaadanaya Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho